ما أنت هدول إلى وحنا قاضينا ما يدي صدح لي ده هاي الصومالي ده وحي دهين صدح ويجور كو bari saar bari dab saar iyo dab saar maxaa laga wadaa bari saar waxaa laga wadaa laba reer oo taajiriina oo hanti leh markay labadooda awlaad ama labadooda ay dhaleen carruurtooda iskuursadaan tusaale ahaan gabadh reerkoodu taajir yahay iyo wiil reerkoodu taajir yahay baa iskuursaday marka waa bari saar waa laba barwaaqo isu geeway bari dab saarna labada reer mid ka mid ah oo cayd ah iyo midka kale oo asaguna taajir oo iskuursaday marka waxay ka dhigan tahay bari dab la saaray way shilmi Soomaa reerkii hantida lahaa haduu reer cayd la kulmo de hantidoodii bay cunayaan oo ay dhamaysanayaan marka waa eber Soomaa dab saarna waa laba reer oo cayd oo iskuursaday yaani laba wiil iyo gabadh ka soo kala jeeda laba reer oo cayd ah oo waxa weeye iskuursaday marka maxay ka nuugi maxay ku nuugi waa laba eber aan hanti lahayn marka waxa weeye dab saar saddex lama dagaalaydi doqon fiira taqaan fulay daandaas yaqaan iyo bakhayl damac yaqaan doqon fiira taqaan waa qof doqon oo Ilaahay ku soo jeediyo waxaanu sameeyay ceebtaadii muddo ku sheego mar walba xuma qarinaya marka doqon fiira taqaan oo adeeg ku fiirsano lama dago fulay daandaas yaqaan dadka ma deynayo qof walba wax ku dhufani oo qof qarbood iyo dhibaato ah haddana dagaalka ma galayo dhibaato ma ku soo jeediyo lama dagaalay bakhayl damac yaqaan qof bakhayl oo maaragtay waxaaga uu dhowraya wixiisa lama cuni karo waxaagana ma deynayo marka kaana lama dagaalay saddexna lama saaxiibo nin aan rabbi aqoon nin aan rag aqoon iyo nin aan run aqoon saddexa lama saaxiibo nin aan rabbi aqoon qof Ilaahay gooyay oo daacad Ilaahay ka tagay lama saaxiibo dal saaxiibada adiga laftaada dambigiisa la qaybsan Soomaa nin aan rag aqoon nin aan rag garanayna dabeecadiisa iyo dhaqankiisa lama saaxiibo kaasi dhibaato ma ku soo jeedi nin aan run aqoon qof beenaala lama saaxiibo beenaala dhalay baasha lama saaro ballankii Ilaahay nina qaba lama baasha beenaale seedo aamini waa laga fogaadaa saddex xaweeye waa la isku caaya ama waa la isku nacaa bariya badan baahi badan iyo bukaan badan bariya badan hadaad leedahay dadku way ku nacayaan maantana wayna bariya ka carraa leeyahay Ilaahay uu kugu jeclaan bariyada badan laakiin milaadanku way kugu nacayaan baahi badanna waa sidoo kale haday baahi ka muuqato waa lagu nici oo abuwanku lahaa cadawaawiisa dhubniya dhaawac ka garan waxa loogu soo dhaashadaa dhux sagaara dhodonkeeda taa lama lahayn deebka raasay macnuhu waa dhiga lama bariya ceebka dhowrsada yaani marka u tagaysa dadka subag iyo waxa la soo mariya waa la soo qurxiyaa baahida waa la iska qariyaa waxa la yiraahdaa waa baahan tahay waqti looma cuno ka baahida waa la isqariyaa waliga baahida waa la qarsadaa bukaan badanna waa la isku nacaayo hadaa tirada waa xanuunsan waa lagu nici qofkii kula joogay waa ku nici ama dad kale waa ku nici marka baahida burshiga badanna Ilaahay burshiga asaga keenay laakiin haddana silsilcinta lama rabo saddex baa dumarka lagu qabi jiray waagii hore xilkasnimo xog ogaal iyo xan la'aan xilkasnimo mas'uuliyadii qofkan uu qaaday xilka ahaa inuu garanayo oo ka sayo fahmayo oo ilaa xil buu qaaday xilkiisu intuu leeyahay inuu fahmayo yuu ku qabi jirayo maalinku la wareego gabadhiisa iyo xaaskiisa si fiican buu dhaqan jiray xog ogaal reerkiisa iyo xaaskiisa baahida ay qabto iyo reerkiisu ogaan jirayo maala yacni meelaha taagnusa aan jirin gabadheeda afjaaqeeda iyo bilaanteeda iyo dhoolaka cad maarta waxa uu fahmi jiray oo qofdii xogta reerkiisa iyo xogta xaaskiisa garanaya oo caruurtiisa heerkiisa og ahaan jiray rag hore xan la'aan lama xaman jiro lama dhiisay ninka reerkiisii uu dayacay ama reerkiisa waxa gadan jiray nin reerkiisa ku filan ku ahaan jiray yaa bedelay marka saddex baa bedeshay baa leeyahay saddexdee way xilma saara xaal ma qabto iyo xero male xilma saara rag baan maanta waxa jira meelaha iska joogi oo mas'uuliyad reerkiisa laga yaabo inuu soo beel siinin oo waxba siinin meelaha caruurtiisa
ضيعmayaan caruurtii waxbarasho la'aan ay ku baaba'ayso dee xilba ma saaraba xaal ma qabto waxa arkay nin reerkii uu gabadha ka qabay ma xaaskiisa caayay oo miidiyaha dhex fadhiya sida tirada haya oo gabadhii la murmaya xaaskiisa ay dumarkii caayaya si qof dumar asoo haya laga yaabaa aad arkaysa iyo xaaskiisa oo murmaya meel miidiyaha dhexdiisa qawaamadii iyo mas'uuliyadii ma u garanayo marka waxa la dhigi karaa dee waaba qayb ka mid ah dumarkii uu noqonaya xero ma leh waa ragga habeen walba meel joogaya halkan ku iska seexanaya hadduu doono caawa habeenna meel kale u seexanaya habeenna uu soo hoyanaya meeshii hurdo ku qabato iska seexanaya way badan yihiin kuwaas saddex kuma daryeeshaa layidhi dumaal haween doqon sokeeye iyo dal shisheeye saddexdaa kuma daryeesho kuma wanaajiyaan yacnaha dumaal haween waa gabadh walaalkaa ka dhintay oo dumaashay dee jacayl meesha ma yaallee danbaa isu keentay waxaa tiri walaalkay carruurtiisaan korinayaaye islaantaan dumaalayaa marka dumaal baad ku tuwaaday sooma nina kuma daryeelayo jacayl ma jire doqon sokeeye haddii doqon inay ku disho mooyeen waxba ku siin mayse manac baad ka sugi doqon adiga dhibaatadaada iyo xumaantaada bay ku joogtaaba dal shisheeyana sidoo kale haddaad dal shisheeye moodo inuu wanaagsan yahay adiga buu ku dili kuma daryeelayo xaqiiqo way intaas baan sheegnay hadda